بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أهلدي مرحومين تا قبلها للجلي المدينتي وحنو شيءنا ددوينها مسلمين تا عامهان كنا نيروبي النواحي جدا خاصة صومالي دا إن أسكود إن شاء الله بري ظهر كي لقيتو كان دون مساجد كمسجد النور وحرنا مركا maadaama ay gabdhahaas ka baxeen ummadda Soomaaliyeed aan muujinay macnaha xumaanta iyo dhibka aan u maaragtay ka qabno aan ilaa mudaharaadyo howlo waaweyn aan u sameynay waxaan leeyahay aaskoodii inaan maaragtay muujino inuu yahay aas ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimiintaaba ku weyn oo dadka maaragtay tacsiideeda iyo murugadooda ay ku weyn tahay marka waxaan rabaa in aaskaas insha Allah as qaran laga dhigo as weyn laga dhigo berritooda insha Allah waa sida hadda go'aanka noo yaalo oo noo soo baxay wixii dheeraad ah ama yani gadaal dambe ka yimaada insha Allah waxaan kala soconaynaa waqti kasta wax isbedeli karaan waxaan kala soconaynaa TV-yada hadda iga duubaya aan shirkan jaraa'id aan hor fadhiyo ayaa ma aragtay aad kala soconaysaan saacad walba meesha ay wax marayaan wixii soo kordho insha Allah shirkaas degdeg ah ayaan u qaban doonaa insha Allah TV-yadan hadda hor fadhiya marka waxaan leeyahay aaskaas inuu aas nagu weyn yahay inaan muujinaa oo insha Allah si fiican aaska uga soo qayb galnaa Masjid Nuur wuxuu ku yaalaa South Sea kulli waa qabuuraha Langata saan rajeynayo marka waxaan leeyahay iyagana Allah naxariisto anagana sabr iyo iimaan Allah naga siiyo laakiin aan muujino waxaan aad ugu faraxsanahay in maaragtay arintan Soomaalida caam ahaan meel kasta ay joogto dunida daafaheeda arintan aad uga dhidiyeen oo aad maaragtay saameyn maanta ugu leedahay Soomaalida dunida daafaheeda ku nool marka maadaama ay nasiib u heleen Soomaalida joogta Nairobi waxaa leeyahay nawaaxigeeda aaska maaragtay insha Allah aan weynayno aaska aan si fiican uga soo qayb galno ha laga dareemo magaalada Nairobi ha laga dareemo aaska magaalada Nairobi ha laga dareemo meediyahan waxaa leeyahay iyagana ha soo diyaar garoobaan meediyaha si fiican ha uga soo qayb galaa iyagana aaska marka taasaan baraarujinayaa taasaan aad u baraarujinayaa insha Allah waxaan rajeynayaa insha Allah inaad adinku laftirkiina dareenkiina oo marka horeba idin siinayay ina aaska aan weynayno gabdhaha reer kama bixin qaraabo kama bixin ehel kama bixin wax ay ka baxeen waa Soomaali oo dhan insha Allah wixii arimahooda ku saabsan iyo investigation ka socdana insha Allah waa idin wadaagi doonaa si aad u heshaan war nadiif ah oo maaragtay macnaha il wax laga qaadan karaa ah waxaan idin soo gudbin doonaa insha Allah wixii investigation ka soo kordho aaskana insha Allah waa inaan si fiican aaska uga soo qayb galnaa rag iyo dumarba inaan aaska ka soo qayb galnaa ganacsato siyaasiyiin culumo oday dhaqameed cid kasta oo bulshada kamid ah inay maaragtay ka soo qayb galaan aaska insha Allah وانا رجينا ان شاء الله اسكاس انه اسوي نو نقدو sidaasaan idin leeyahay marka walaalayaal wax kasta soo kordhana insha Allah waa isla socodsiin doonaa sidaasaan marka ku soo koobaya wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dawadayaal ninkaasi waa Dr. Maxamed Cali oo kamid ah ehelada gabdhihii sida xun loogu dilay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi sida uu idin sheegay maalinta bari'a duhurkii ha lagu soo tukado masjidka Masjid Nuur ee xaafadda South Sea ee magaalada Nairobi gabdhaha kulay marxuumiinta waxa loo qaadi doonaa xabaalaha ama qubuuraha Langata oo markaasi inta badan dadka Nairobi ku geeriyooda halkaa un baa la geeyaa waa in aan muujinaa dareenkeena sidii shalay aan u muujinay aan iskugu soo baxnay barodiiqda aan u samaynay inaan ka xunnahay dhacdadaas aan u muujinay waa inaan sidaas si lamid ah maalinta bariya aan qayb uga noqonnaa oo aan u imaanaa meesha lagu aasayo marxuumiinta sida arxan darrada ah
loo dilay ee weliba xubnahooda qaybo ka mid a loo jarjaray gabdhahan hadda saddexda ee meydkooda berito quburaha la geynayo waxaa lagu garab wadaa lugahoodii iyo gacmahoodii baa qaar ka mid a lagu garab wadaa oo la googooyey waa dhacda argagax badan qofku hadduu si caadiya kaaga dhinto wax dhiba ma laha dhimasho unbaa dadku waxa weeye qof walba uu dhimanaya laakiin waxaa daran in qofkii hilibkiisii aad kala xaxabaasho ama aad qaarna bac ku wado qaarna aad waxa weeye baalka ku jiraa daran waa dhacdo marka argagax badan weeye insha allahu tacaala waa berito iyo xabaalaha Langata ama quburaha Langata ee magaalada Nairobi halkaas balan inoo ah oo iskugu imaan doona cidii aragtideedana ka dhiban doonto berito de ka hadli karto oo arrintaasi cabaarayn karto oo TV-yada iyo warbaahinta la xiriiri kartana waa u diyaar halkaas anaga naftirkaanada diyaar ku nahay hadii Ilaahay yiraahdo waxaan moognahay oo san dhicin wixii xogo intaas hadda u dhaxaysa berito aasitaanka iyo waqti xaadirkan oo inala hadlay inta u dhaxaysa wixii xogo soo baxdana de waaban u taaganahayba sida hore idin ballan qaadnayna waxaan daba joognaa oo aan si qoto dheer u dabagelaynaa sidii aan cadaalad u wada heli lahayn oo marxuubiinta xog walba iyo meeshay ku jirtaba uga dabageli lahayn hadduu allayno marka saasaa ballan inoo ah oo dhammaanteen aan isku ognahay hana la soo duceeyo ducada ha lagu daro oo ilaahay ha la soo baryo in dhammaantood gacan ku dhiglayaashaasi dambiilayaasha dhibaatada geystay oo ilaahay bulshada ka soo qabto ha la duceeyo insha allahu tacaala ha la soo duceeyo